sare ee aad furto modelska xagga waxa ku arki jirteen ilaa 5-6 model oo marka magacyo isku dhadhow leh oo lagu wareeri jiray hadeertan taa waa laga saaray meesha oo qofka kaliya wuxuu arki doonaa GPT-5 hadii aad kan free isticmaalaysid GPT-5 kaliya arki doontaa hadii laakiin se kan plus ka isticmaalaysid anigoo kalena GPT-5 thinking ka dheeraad ku arki doontaa kan hoosena upgrading uu ku soo saari doonaa hadii aniga plus ba isticmaalay imika wuxuu leeyahay pro ku upgrade garayso adina da free ta wuxuu ku dhigi doonaa plus ku upgrade garayso marka ilaa qofka pro isticmaalo بفرنتس كخرصومي دونتا لكن مهمته waxa weeye hadda all models ki unified baa laga dhigay marka as a user adiga maxay faa'iido ku leedahay qofka userka caadiga waxa uu ka faa'iido doona unification kaas waxa kamid ah in marka hore uusan ku wareeri doonin hadda wixii ka dambeeya laakiin markii hore dadka qaar badan kood may kala garan jirin all those models ka kuweba awood badan leh waxa dhici kartay in GPT-yada ugu fiican markii hore in su'aalo yaranta weydiisay ka xidmaan oo aad kala garan weyday laakiin unification kan wuxuu sababay in qofka markasta su'aasha uu weydiinayo ChatGPT awoodeeda ma baaxadeeda inta la egtaa in loogu tala galo awood marka la siino laakiin su'aal weyn hadaa weydiiso laga yaabaa in modelka awood badan marka lagu soo qoro marka hadhowna marka hore uu kaaga xidmo marka qof kasta uu isticmaali kara imika waa tijaabin kartaan anigana dhowr su'aal baan weydiin doonaa inta waqti inoo saamaxo so number 1 horta unification kaas lagu sameeyay wuxuu kamid yahay waxyaabo waaweyn marka lagu soo daray sidoo kale waxyaabo cajiibka ah ee lagu soo daray GPT-5 kan doonayay imika soo tijaabin waxa weeye hadii aad qof developer ah qaybta codingka aad iyo aad baa awood loogu soo siiyay xitaa hadii aan developer ahayn oo marka aad doonaysid inaad tijaabiso waxaad samaysan kartaa websites adiga ku qaas oo hadii HTML ka xeer ka fahamsan tahay laakiin hadda su'aal yar baan weydiinayna waxaan dhihi doonaa waliba waxaan doonayaa intaan u guda galinayo intuso soo halkan waxa uu jiray markii hore batamo badan ay kamid tahay qofka markuu doonayo inuu deep research sameeyo ama uu sameeyo canvas wax inuu ku qoro halkan batamo oo jira dad doonay sawir in lagu sameeyo marka hore la sii select garan jiray soo hadeertan waxaas dhan waa laga saaray leadkii wuxuu noqday xero dhuuban si taa kuwa u isticmaasho kaliya waxa taaban doonta calaamadda backslash ta kadib markaa ay ku soo bixi doonaan dhammaan wixii meesha ku qarsoonaa like agent mode ana hadda agent mode ka waxa ii furan 38 xaba ii yaalaan oo plus ka isticmaalaya soo agent mode ka wax kala ma ahan in aad su'aal u dirto kadib marka computer uu ku shaqeeyo waxa uu ku qabto like I don't know ma isticmaalaan wuxuu tarakaas awoodiisa weyn taa laakiin si ma isticmaalaaniga sidoo kale deep research xagan uu ku jira qofkii research qorayo kala xagaas uu ka anfici doona hada sawir samaysanaysid thinking asagana waa mid kale kan oo ay tusin doona state online asagana oo soo noqon doona horta marka hore canvas ka saan rabanayaan soo canvas ka saan dooranaya kadibna waxaan dhigi doonaa soo canvas kanta waxa loo isticmaalaa coding marka sameynaysid iyo marka doonaysid document ina qortid oo kale ku fiican yahay like word ko kale wax ku qortaa ama PDF file na samaysid hadda waxaan dhigi doonaa create a landing page for a developer that uses Node.js to code like waxaan dhahay isma landing page ku wanaagsan qof developer oo marka Node.js isticmaala waxaan dhigi doonaa I want to use this as my portfolio kala just oo u dir doonaa xogaa yar buu qaadanaya oo ka tagaynaa because hadda wuxuu sameyn doonaa thinking longer for better answer so waxyaabo ku fiican ka mid tahay GPT-5 ka waqti dheer buu qaataa laakiin wuxuu ku siin doonaa result aad u qurux badan marka waan ka tagi doonaa hadeertaan waxa la su'aal kale aan sii weydiin kan in badan buu sii qaadan doonaa inuu dhameeyo waxyaabaha kale cajiibka ah GPT-5 ka aan ku arko waxa kamid ah qofka doonaya marka inuu xirfad barto kale si fiican buu anfacaya for example xirfad baad doonaysaa inaad bartid meel ka bilowdo mataqaanid waxa dhici karta hadii aad taawato backslash ka waxaad dooran kartaa kan u hooseeya kan state online ay ku qoran tahay marka ka doortid automatically wuxuu ku dhigi doonaa maxaa doonaysaa inaad barto ama learn something new xagaas waxa ku qoran doontaa xirfadda marka aad doonaysaa inaad bartid for example waxaan dhigi karnaa waxaad tiraa waxaan rabaa inaan barto data science oo kale doonaya inaan barto interum basinaya kadib marka wuxuu ii bilaabi doonaa inuu aan su'aal igu soo celiyo wuxuu dhigi doonaa marka waxaad doonaysaa data science ka inaad beginning level ka soo bilowdo ilaa advanced ay gaadho sidoo kale wuxuu ku weydiinayaa ma leedahay background development ama programming ka labada su'aal baan uga jawaabi doonaa yes waxaan dhigi doonaa I want to start from the beginning
and I am not developer. hadda waxaan dhahay marka waxaan doonaynaa beginning ka soo bilaabo developer nama ii soo kan markii uu noo soo jawaabay asaga waan ku wadi karnaa muuqaalka hadda taa marka perfect uu noo bilaabo step 1 wuxuu yiri waxaad fahamtaa what data science uu yahay step 2 tools ka baro soo kan waxyaabo ku fiican kamid qofka marka u horeysay doonay inuu xirfad barto kale wuxuu siinayaa marka hore road mapkii waxaan ku bilaabi lahaa soo halkan oo saddex timaadidna wuxuu ku dhigi doonaa waxaad doonaysaa inaad bilowdo yes baan dhahayaa marka yes I want to start lesson 1 waxaad doonaysaa casharka koowaad inaad bilowdo soo aan wax badan baa kasoo booda hadda halkan ilaa 7 step buu ii sameeyey 7 step waxaa weeye 7 talaab aan u mari karo si aan data science u barto halkan hoose wuxuu igu yiri lesson 1 markuu qoraan ka boodbooday marka aad u akhrisan doontaa kale soo lesson 1 wuxuu noqon doonaa data inuu ka hadlo data maxay tahay what is data science data meel walba taala muxuu yahay hadafka laga leeyahay qofka data science ka baranay asas buu kugu wadi doonaa marka waad dareemi kartaan qofkii xirfad doonaya inuu bilaabo oo iskiis inuu barto doono meel uu wax ka bilaabo aqoonin kan oo kale waa anfacaya marka adiga kugu sii xirantaana ku sii socodka su'aalu ka weydiinaya waxyaabo ugu fiican oo isticmaali karto waxa kamid oo kale inaad samaysto wax la yiraahdo study guide oo marka aad casharada meel kale ka raadsato kana marka saa uu ku sii caawiyo hadda tan saa arkaysaan uu inoo dhameeyay qaybtii code-ka aan ku lahayn portfolio inoo sameeyay ama landing page so landing page waxa ay website-da halka page ay qofku isticmaali karo inuu kusoo gudbiyo xogtiisa personalka haddii aad tahay CV oo kale aad isticmaashid hadda tan code-ku noo qoray soo markuu code-ka saa u dhameeyo si aad u aragto code-kan hadda ma fahmi karto waxaan qoraal code ah si aad u aragto oo aad marka aad u akhriso button-ka sare ran code-ku qoran taabanaysaa soo kadibna ku sameeyay hadda arkaysaan wuxuu inoo sameeyay website landing page cajiib ah oo qurux badan soo hadda xoogaa uu isku yaruursan yahay si aan u sii arko waxaan taaban doonaa calaamadda share testare create link buu ii sameyn doonaa linkigaas baa markaa intaan qaato aan ku furi doonaa marka tab cusub oo markaa balaaran oo wuxuu dhan markaa ii soo wada baxayaan marka dadka linkigu ii sameeyay oo aniga soo qaata dirtaan initializing environment buu dhahayaa fuwaalaad oo arkaysaan wuxuu ii sameeyay website inaba aan caadi ahayn oo qurux badan oo landing page oo aan isticmaali karo xitaa wuxuu iigu daray inaan sameyn karo inaan download CV dhigi karo CV la soo degi karo hadda qofka doonaya inuu ila soo xiriiro waa very fantastic way bottom menu xagga sare uu ku sameeyay hadda doonaysa ku celcelin kartaa su'aalaha hadda doonaysa sections dheeraad in ugu daro waxa dhigi kartaa sectionka ay igu dar xagaan contact us ki page-ku uu sameeyay qofka doonaya inuu kula soo xiriiro qofka WhatsApp doonaya inuu kala soo xiriiro xitaa wuxuu ku xiray WhatsApp-ka linkigi automatically qofka WhatsApp-ka geeyna just number-kaaga un baa ku soo xiri doontaa qofkii doonaya inuu kula soo hadlo book call baa dhigi kartaa marka just like waa perfect waa first revision waliba waxa ku celcelin kartaa waxa dhigi kartaa inaad dhahdo kan ka bedelka kale ku soo dar looga yaro hadii sameeyay xitaa magacayga wuxuu ka soo akhrisanayaa caseer akoonkayga hadii imika toggle team aan dhaho xitaa wuxuu ii sameeyanayaa light team iyo dark team inkastoo light team ku fool xun yahay soo taahol bay u baahan tahay waxa doonis waa ku celin kartaa hadii kartaa light team ko cilad buu leeyahay hagaaji marka qaybta waxaan kaga leeyahay code-ka soo coding-kana wuxuu ku leeyahay caadi maaha aniga maanta waxaan mar ku sameeyay landing page aan u bedela xataa WordPress team soo waxa sameyn kartaa hadii qof website sameey ku WordPress-ka aan HTML landing page ku sameeyay waxa dhigi kartaa waxa u bedeshaa WordPress team zip file buu ku sameeyaa file team-ka inay ku jiraan hadaa qaad WordPress-ka geysid exactly sida uu eegiyo kale marka uu ekaanaya marka inta ku soo koobno waxyaabo badan baa jira GPT-5 lagu soo kordhiyay inkastoo dadka falanqeeyay ay lahaayeen GPT-5 sida loo maleeynay ma noqon waxyaabo badan baa laga rajeynaya laakiin se marka sidii la rajeynay muu noqon wax badan baa marka ka maqan still imika benchmark la sameeyay number 1 kuma jiro number 1 ilaa hadda haysto AI Twitter ee leedahay Grok la dhaho kaas wali uu ka xoog badnaan waaye marka waxay kamid tahay waxyaabaha lagu dhaliilay ani overall imika plus-ka maanta isticmaalay waxaa jirta website aan ku sameeyay oo maanta ku tijaabinay code aan ku qoray ana majority code-ka aan isticmaalaa halka marka loo eego ciladiis way yaraan si fiican uu sameeyay outside the box waxa loo ka fikiray waxa u dirtid marka adigu tiraa 1 iyo 2 iyo qabo 3 4 5 buu kugu daraya marka si qurux badan oo marka aanad ka filayn inuu kaaga dhiga laga oo marka ka si expectation-ka oo marka ka sii baday marka inta aan ka arkay wala fiicnaa laakiin still sidii la rajeynayna muu noqonin wax badan baa marka jira oo lagu dhaleeceeyo harjana muuqaalka wax badan ka faa'iideystay comment inoo soo qaraday jirto waxaan ka tagay